Bismillah. Fadli iyo barako badan ayay leedahay istighfaarta oo la laasimo. Istighfaartu macnaheedu waxa weeyaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga dalbado dembi dhaaf. Dembiyadii kaa dhacay iyo macsidaa gashay ina Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka weydiisatid dembi dhaaf. Fuqahaadu waxay dhahaan al-istighfaar waxa weeye dalab maqfira. Waxa weeyaan qofku inuu weydiisto Ilaahay subxaanahu wa tacaala maqfiro iyo dembi dhaaf. Waa sitir iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qofkan asturayo u dembi dhaafayo. Waxa weeyaan in qofka dembigiisii la dhaafayo oo aan loo qaadin wixii uu qabtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dembi dhaafayo. Istighfaartu waxa weeyaan istislaam iyo isdhiibid. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu lahaa wamaa kaana Allahu mucadabahum wahum yastaghfiruun. Nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu lahaa sidoo kaleeto qofkii istighfaarta laasima hami kasta Ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj buu uga furaa. Diiq kasta iyo dhibaato kastoo haysatana makhraj baa Ilaahay uga bixiyaayo waduu Ilaahay u sameeyaayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u fududeeyaa arrinkiisa. Sidoo kaleeto Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka irsaaqaa qofkaas meel uusan ka filanaynin iyo wuxuu ku irsaaqaa wax uusan filanaynin. Istighfaartu sabab waxay u noqotaa in qofka balaayo iyo ibtilaa iyo culays saaran laga qaado. Sidoo kaleeto waxay sabab u noqotaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala nimco iyo khayr uu siiyo qofka bini'aadanka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu lahaa faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. Nabi Nuux calayhi salaam qoomkiisa wasigu ku lahaa waxaan ku iri istighfaar Ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiista. Ilaahay samada wuxuu idinka soo dejinayaa roob. Wuxuu Ilaahay idinku irsaaqayaa amwaal iyo awlaad. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kaleeto wuxuu idin siinayaa beero iyo webiyaal ayuu ku lahaa Nabi Nuux qoomkiisa. Waxaa la sheegaa Xasan al-Basri Ilaahay ha u naxariistee in nin u yimid wuxuu yiri waxaan ka cabanayaa ama aanu ka cabanaynaa qillatul madar jiilaal baa jira roob la'aan baa jirta. Markaasuu wuxuu ku lahaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiista. Markaasaa waxaa u yimi isagoo majliskii fadhiya nin kale. Markaasuu yiri waxaan ka cabanaynaa fakhri. Markaasuu wuxuu lahaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiiso. Markaasaa waxaa u yimid mid saddexaad. Markaasuu wuxuu yiri waxaan ka cabanayaa awlaad Ilaahay iguma irsaaqin. Markaasuu wuxuu ku lahaa Ilaahay dembi dhaaf weydiiso. Markaasaa waxaa u yimid mid kale oo afraad. Markaasuu wuxuu yiri waxaan lahaa beertii baa dalag soo saari la oo aan ka waayay maxsuulkii iyo dalagii. Markaasuu wuxuu ku lahaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiiso. Markaasuu waxay ku dhaheen adigu xal uma haysid miya mushkilo kasta xalkeedu ma astaghfirullah ba. Markaasuu wuxuu akhrinayay aayadahan qur'aanka ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. Istighfaartu wax kasta dawey u tahay. Qofku inuu istighfaarta laasimona Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatooyin badan buu kaga qaadaa. Guulo badanna wuu ku gaaraa. Istighfaartu waxay leedahay dabcan qaab loo istighfaarsado inaa astaghfirullah subxaanallah iska dhihdid maahane waxay u baahan tahay si dhiibliya oo niyad ah astaghfirullah markaa dhihdid inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaagii iyo waxaad macsi gashay kusoo hormarayaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala adoo ka xishoonayo oo aad dembi dhaaf weydiisanaysid. Subxaanallah markaa dhihdid Ilaahay cadamadiisa iyo weynaantiisa iyo inaa sawiranaysid. Markaa leedahay alxamdulillaah ina Ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkuu ku siiyey oo dhan ay kuu muuqanayaan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala mid aad uga xamdi naqaysid. Marka istighfaar kasta oo iyo taxmiid kasta iyo tahliil kasta iyo xawqalada iyo kulli inaad soo xaadirsid niyadaada oo aadan afka uun ka dhihine Ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad dembi dhaaf weydiisanaysid ood u mahad celinaysid ood weyneynaysid oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaa mar kasta waxaa laynaga rabaa inaynu niyadeena soo xaadirino oo si qalbiyan ah aynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf u weydiisano iyo wixii aynu doonayno. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo kuwa istighfaarta iyo khayrkaba ku dadaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.